shacabdisaaq wuxuu leeyahay gabadh baa waxay tidhi oo iyaga u tagtay waxaan wada soconnay wiil kadib waxaa ina dhex maray gogol dhaaf zino waxaan hadda ogaaday inaan leeyahay uur 10 cisho ah wiilkii wuxuu igu yidhi aan isxalaashanno maadaama waxay leedahay gabadhani maadaama ilmahani caloosha galay ay ku galeen si khalad ah suuragal ma tahay inaan iska soo xaaqo maadaama ay yihiin 10 cisho oo keliya ilaahina aan uga toobad keeno mana rabo inay calooshayda ku jiraan ilmo zina ah haddii aan rabno inaan hadda isxalaashanana haddii aan rabno inaan hadda si xalaal ah isu guursanno ma isu guursan karnaa jazaaka allahu khayran بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد رب يسر ولا تعسر سؤاشاس waxay tilmaamaysaa runtii natiijada xun ee kharaad ee aakhariya adduunba qabsanaysa ruuxa ku fududaada zinada ceeb adduunka ah iyo aakharo laga yaabo in loo ciqaabo saas daradeed in aad looga fogaado zinada iyo asbaabta keenaysa ayay darsi u tahay oon ka faa'iidaysanayna qodobka labaad ilmuhu haddii uu uurka galo oo xayawaanka manida la socda iyo ukunta hooyo ay isgaadhaan oo isla falgalaan inaan la soo ridi karin marxaladuu dooni ha joogo bilow ha ahaado dhexda ha maro nafta ha lagu afuufo inaan la soo ridi karin marxalana ayaa wuxuu yahay madhabka jumhuur ahlilcilmi ama culimmada badankood ay qabaan maalikiyada xanafiyada qaar ka mida shaaficiyada a'imadooda rag ka mida maraya sida alimaam alghazali ibn xajar alhaytami alimaam alciz ibn cabdisalaam iyo xanaabilada a'imadooda qaar ka midana saasay rajaxayaan sida alimaam ibnu rajab ibnu ljawsi sheekh islaam ibnu taymiya waana madhabka ahlu daahirka ama daahiriyada bimacnaa xataa 40 beri inta ka horaysa 10 beriya u horaysa wakhtiguu doonay ha ahaadee inaan la soo ridi karin ayay culimmadaasi qabaan waana sida saxda wey waxaa kaloo sidaa qaba hay-atu kibaar alculamaa المملكة العربية السعودية علماء السعودية وحنا أدلة لو دليشهدو انتان أركي إيلفي عن حديثك في صحيح مسلم كياله النبي صلى الله عليه وسلم وحال ويديي عزلق وإن بيهب انتينان قارن هو يدا من كذا إن حبينك ترنك الله صوصار وبنانك بيها لقود عديه taasaa nabiga la weydiiyey sal lay slm isagoo ruuxu markaa ka cararaya inuu ilmuhu uur galo nebigu sal lay wasalam wuxuu yidhi dalika alwa'du alkhafi waa xabaal nololin qarsoon yacni waa ilmo la dilay si qarsoodi ah tiyo yaro qarsoon waaye ayib haddii biyihii aan oon weli ukunta hooyo la falgelin bannaanka in lagu daadiyo uu nabigu ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam inay tahay xabaal nololin qarsoon biyihii oo ukuntii la falgalay oo abuurkii bilowday soo rididiisa way ka sii xag jirtaa maxay ilaa marka hore ismaba gaadhin waa biyo kaligood arintaasi marka waxay tilmaamaysaa aadamuhu mid kale dhaqaatiirtu waxay isbaatinayaan oo isla ogol yihiin kulanka biyaha iyo ukuntu hadiiba usbuuc ka soo wareego waa bilowday markaasba samaysankii waa bilowday laakiin waa qarsooye saas daraaddeed sida raajixi xooga badan waxa weeyeen inaan la soo ridi karin ilmaha uurka ku jira marxalo maraaxisha ka mid ama bilow ha ahaado ama dhexda ama ay marxalo min maraaxil saasa xoog badan taas saas daraaddeed ruuxa zinada ku dhacay sida gabadhaas oo kale oo ilmo uurkeeda u galay
in haddana lagu daro in la dilo la soo rido waa dembi haddana dembi kale lagu saxayo waa saas daraaddeed arrintaasi ma bannaana kow su-aasha waxaa ka mid a iyadoo uur leh oo ilmihii uurkeeda ku jiro ma la guurin karaa oo ninkii ma isguursan karaanoo sida soomaalidu tidhaahdo ma la ysku ceeb asturi karaa taana iyadana nikaaxaasi inuusan asaxaynin ilaa ay uurka zinadaa umusho waa madhabka imaam maalik thawri isxaaq ibnu rahwiya abu yuusuf alimaamu alawsaaci culimmadaasi waxay qabaan haweenta uurka zinada ah leh ee xambaarsan ilaa ay umusho inaan la guurin karin laa kii ka zinaystay inaan loo guurin karin walaa ku kale inaan loo guurin karin iyadana waa sida xooga badan waase masale khilaafiya oo imaamu shaafici iyo culimaa qabta in guurku uu guntamayo taana waa midda amaa markay umusho kadib oo ilmuhu bannaanka yimaado ama iskiiba u dhinto oo laga yaabo inuuba uurka ku dhinto markii caloosheedu bannaanaato kadib ma isguursan karaan jawaabtu waa haa cinda aljumhuur guurkoodu waa asaxayaa labadaa kala zinaystay ee aynan uur zina lahayn in guurku isu qabanayo qaybo saxaabada ka mida qaba iyo taabiciinta waana madhab imaamu thawri shaafici waana sida uu rajaxayo alimaam ibnu lmundir calayhim raxma jamiican bimacnaa way isguursan karaan haddii ay umusho oo alkhabiiaatu lilkhabiiiin waalkhabiiuuna lilkhabiiaat dadka saasoo kale ee kala zinaystay way isleeyihiin dadka aan zinaysaninee alطayibaatu liطayibiina wاطayibuuna liطayibaat iyaguna waa isleeyihiin sidaas daraaddeed maadaama labaduba ay sunnaad yihiin guurku waa isu qabanaya laakiin waa goorma waa markay umusho kadib intay uurka leedahay sida raajixa ah caqdigu ma qabanayo mana guursami karto wallahu aclam